heer sare ah oo ay soo dirayeen dalalka Finland iyo Sweden oo markaas ku soo socda magaalada Ankara si ay dalka Turkiga uga tuugaan inuu ka hor qaado arintaasi xogaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay hadii la doonayo in gaashaanbuurta NATO ay dalalka horta in la qanciyo Turkiga ayaa waxa uu sheegay in dalal cunaqabateyn ku soo rogay dalkiisa sidoo kalena maalgeliya isla markaana madal siiya ayuu yiri kooxaha PKK xildhibaanadoodana ay buuxdaafiyeen xataa kuwa taageera ayuu yiri kooxdaasi in ay soo dhaweeyaan ay tahay ayuu yiri khalad aad u weyn oo marnaba ka soo roobay dalkiisa Gorsiyoris ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu waxa uu sheegay in dalalka taageera argagixisada aysan marnaba noqon doonin saaxiibada gaashaanbuurta NATO ama xulafada aysan kusoo geeri doonin haddaba waxaa isweydiin mudan oo iskortaag mudan Turkigu arintan ma ogolaa karaa suuragal ma tahay in laga yaabo Turkiga in arintan lagu qanco صود فاق نتاذ نفر إطلاق اسولاق نحن حريك على دول كحق دميرك يرو اسكتا